السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا ونكسن داوضي الميل والبود جوكتان به قضبضا ورركنا كم مغلي دونتانا وحاكميدا إذا ماذا ملتريغا إيتوبيا أيا شغي إنay qabsadeen dhul aad u baaxad weyn oo ah dhulka ay ku fadhida wadada Wuliya. sidoo kale ciidamadu waxay sheegeen inay qabsadeen agaaburaha silsilada iyo Gurowoko, Urgesa, Libiso, Gran iyo Marso. sidoo kale ciidamadu waxay sheegeen inay halkaasi ku soo qabteen maleeshiyada aad u badan oo ku sheegeen inay ka garab dagaalamayeen xoogga TPLF. qodobada kale wararkeena ku maqli doontaana waxaa kamid ah dowladda Itoobiya ayaa walaac ka muujisay shirkii golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. sidoo kale dowladdu waxay sheegtay in golaha loo adeegsanayo arrimo siyaasadeed ayadoo dowladdu sheegtay xubno kamid ah golahaasi in ay raadinayaan wada ay ku farageliyaan arrimaha gudaha dalka Itoobiya iyo madax banaanida Itoobiya. sidoo kale golahu waxa ay soo saareen in dalka Itoobiya baaritaan madax banaan lagu sameeyo ayagoo dalalka ka qayb galay ay 21 dal ay u codeeyeen 15 dal ay diideen 11 dal ay ka aamuseen. lana sheegay sidaas inuu ansax ku yahay dalka Itoobiya lagu sameeyo doono baaritaan madax banaan ayadoo arrintaasi dowladda federaalka Itoobiya ay u fasiratay inuu yahay dalka Itoobiya in la farageliyo. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doona. haddayna u guda galno wararkeena oo faahfaahsan, ciidamada militariga dalka Itoobiya ayaa waxay sheegeen dagaalada 24 saac ee ugu dambeysay ka dhacay gobolka Wuliya inay halkaasi ku burburiyeen xoogag ciidanka TPLF ka tirsan. ciidamada militariga dalka Itoobiya ayaa guulo horraaca ka sheeganaya dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya ayadoo ra'iisul wasaaraha dalka uu ka soo laabtay dagaalka uuna ku maqan yahay dalka dibadiisa. militariga Itoobiya ayaa waxa uu shaaciyay inay gebi ahaanba burburiyeen ciidamada TPLF ka dagaalamaya aaga wadada silsilada. ciidamada Itoobiya ayaa waxay sheegeen inay gebi ahaanba burburiyeen cagtana ay mariyeen ciidamada TPLF ka dagaalamaya dhanka wadada Wuliya jidka weyn ee caalamiga. sidoo kale ciidamadu waxay sheegeen inay gebi ahaanba cagta mariyeen ciidamadii ka howlgalayay dhanka agaaburaha silsilada iyo dhanka Gurowoko, Urgesa, Libiso, Gran iyo Marso. ciidamada ayaa waxay sheegeen aagaas oo dhan inay gacanta ku dhigeen ayna ka xoreeyeen xoogga TPLF. militariga Itoobiya ayaa waxa uu sheegay 24 saac ee la soo dhaafay ugu yaraan kumanaan ciidanka TPLF inay cagta mariyaan ayna waxay qabteen iyo wax dhumay ay ka dhigeen. ciidanka dowladda ayaa guulo aad u ballaaran ka sheeganaya iyagoo sheegay inay dhulkii ugu baaxadda weynaa oo dhulka wadada Wuliya iyo buraha silsilada dhulkaas oo dhul masaafadiisa lagu qiyaasay ugu yaraan 1 kilomitir isku weera ay sheegeen ciidamadu inay isku sii ballaarinayaan. dagaalada waqooyiga Itoobiya ka socda ayaa maalinka ka dambaysa ka sii daraya iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka iyo xukuumadda dalka Itoobiya uu dagaalkaasi fadhiga u diiday inay xafiisyadooda ku sugnaanaan fadhiga u diiday. ra'iisul wasaaraha ayaa maalinimadii shalay ka laabtay dagaalka isagoo u sii baxay dalka dibadiisa sida la sheegay inuu ra'iisul wasaaruhu ka qayb galayo shirka furmaya dalka Turkiga oo u dhaxeeya dalalka Afrika iyo Turkiga. ra'iisul wasaaraha ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa uu wada howlgallo ka dhanaa xoogga TPLF isagoo dhowr jeer ka soo dagaalamay gobolka Anfarta iyo Axmaarada markii ugu dambeysana hadda uu ka laabanaya dagaalka. hase yeeshee ciidanka federaalka ayaa lagu yaqaanay markasta oo ra'iisul wasaaruhu dagaalka ka baxo ayagoo inay jaanta rogan. hase yeeshee ciidanka federaalka ayaa hadda guulo ballaaran sheeganaya ayagoo sheegay xoogga TPLF inay baaxsanayaan dhulkii ugu ballaarnaan ay ka qabsadeen howlgalladan ay halkaasi ka sii wadayaan. militariga dalka Itoobiya iyo ciidamada TPLF ayaa maalmihii ugu dambeeyay isku gacan saaray dhulka buuraleyda ee silsilada loo yaqaan ee dhulka caanka ee gobolka Axmaarada ama Wuliya. wadada Wuliya in badan waxaa sheegtay militariga inay gacanta ku dhigeen hase yeeshee xoogga TPLF ayaa barihii dambe sheegay inay dhulkaasi ayagu gacanta ku hayaan.
sidoo kale dowladda federaalka Itoobiya ayaa walaac ka muujiyay shirka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayadoo dowladda Itoobiya sheegtay in golaha loo adeegsanayo arrimo siyaasadeed. sidoo kale dowladda Itoobiya waxay sheegtay shakhsiyaad ka mid ah golaha in ay raadinayaan waddo ay ku farageliyaan arrimaha gudaha iyo madax bannaanida dalka Itoobiya. dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay wax kasta oo golaha ka soo baxa inay marnana aqbali doon ayna u qaadan doonto cadow ku soo duulay dalka Itoobiya ayna la dagaalami doonto. hase yeeshee golaha xuquuqul insaanka ayaa waxay sheegeen inuu golahu dhammaan intiisa badan u codeeyay ansaxna uu saa ku yahay dalka Itoobiyana tallaabo sharci ah laga qaadi doono ayagoo lambarka koowaad uga dhigay in dalka Itoobiya howlaha ka socda ama dagaalada halka sare qaatay dhibka iyo waxa ay geysteen baaritaan madax bannaan lagu sameeyay dowladda federaalka Itoobiyana aan lagala tasharin doonin. golaha ayaa waxay sheegeen in waqooyiga Itoobiya ka dhacay xasuuq caalami ah golahuna uu sharci u leeyahay maadaama ay dalalkii ugu badnaa isku raaceen in wadanka Itoobiya la farageliyo. waxaa la sheegay ugu yaraan 21 dal inay u codeeyeen in dalka Itoobiya la farageliyo sida ay 15 dal ay ka sida ay 15 dal ay dideen 11 dal ay iskaga aamuseen. sidoo kale waxaa la sheegay dalalka diiday ee faragelinta Itoobiya ku gacan saareen inay ka mid yihiin dalka Soomaaliya iyo Eritrea oo lagu xantay inay saaxiibtinimo caalami ah la leeyihiin dowladda federaalka Dr. Abiy Ahmed. hadduu golahu isku dayo inuu dalka Itoobiya faragelin ku sameeyo ama loo dalbo inay ciidamo ka howlgalaan ka baxsan dowladda Itoobiya ayaan la garanayn xalku meesha uu ku dambeyn doono. dalka Itoobiya ayaa hadda wajahaya caqabadii ugu cusla ayadoo dowladda federaalka Itoobiya ay qabanqaabinayso banaanbaxyo waaweyn oo ka dhici doona dalka Itoobiya. hase yeeshee maalinimadii shalay ayaa waxaa dalka Itoobiya ka dhacay banaanbaxyo aad u waaweyn oo looga soo horjeedo faragelinta dalalka reer galbeedka ay ku hayaan dalka Itoobiya iyo sidoo kale dambiyada ay geysanayaan xoogga TPLF. dalka Itoobiya ayaa hadda wajahaya caqabadii ugu cuslayd oo ka dhana arrimihiisa gudaha ayadoo dowladda federaalku si cad ay uga soo horjeesatay waxa ka soo yeedhay golaha ama xuquuq waxa qodobada laga soo saaray golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jamhadda Ola ee jamhadda xoreynta shacabka Oromiya ayaa sheegtay inay dhulkii ugu ballaarnaa qabsatay saacadihii ugu dambeeyay ayadoo sheegtay xiriyo waaweyn oo ciidamada militariga dalka Itoobiya ay ku leeyihiin waqooyiga magaalada Addis Ababa inay gebi ahaanba burburiyeen wixii sanad ciidan halka taalin ay gacantooda gashay. jabhadan ayaa maalmihii ugu dambeeyay sheeganaysay guulo hordhac ah oo sheegaysa inay ciidamada federaalka cagta marisay ayadoo gobolka Walega in badan sheegtay inay ciidanka federaalka ka xoreysay. sidoo kale shacabka Oromada ayaa aad ula riyaaqsan guulaha ay gaadhaysay jamhadan oo ah jamhadda u dagaalanta shacabka Oromada. jamhaddan oo in badan la soo dagaalamaysa dalka Itoobiya ayaa weli guulaha ay hadda gaadhaysay horay u gaadhin. hase yeeshee dowladda federaalka Itoobiya ayaa moodaa hadda jamhaddu inay wax dhib ahba ku haynin ayadoo dowladdu dhibka ugu culus ay u aragto xoogga TPLF. sidoo kale ciidamada cirka ee dalka Itoobiya ayaa weli waqooyiga Itoobiya duqeymo culus ka sii wada ayagoo lagu eedeeyay inay beegsanayaan meelaha uu rayidku degan yahay. sidoo kale ciidamadan ayaa waxay garaacayaan meelaha ay ku tuumayaan xoogga TPLF ku dhuumalaysanayaan ayadoo maalinka ka dambaysa ay ka sii darayso dhibaatada gobolka waqooyiga Itoobiya. tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.